بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رمضان مبارك. halkan waxaan insha allahu tacaalaa aan doonayaa inaan in yaroo wargelin ah iyo ogeysiis aan uga jeediyo dhammaan culimada iyo imaamyada masaajidada tujiya, maadaama aynu ku jirno bishii barakaysnayd ee bishii ramadaan. waxaan marka hore dhammaan dadka muslimiinta ah aan ku gubaabinayaa inay ka qanimaystaan tobankii dambe ayaynu gallay. waxaynu ku jirnaa waxaa ay bishu inoo tahay 21 inay ka qanimaystaan oo ay daysoon tahay iyo hadday tahay qiyaamkii iyo taraawiixdii iyo hadday qur-aan akhris tahay iyo hadday duco tahay iyo hadday dikrigii ilaahay subxaanahu watacaala ay tahay iyo cibaadaadka kaleba sida bishan barakaysan oo sadaqada dadka baahan la siiyo, la afuriyo. taas marka hore waa guubaabo guud aan dhammaan dadka muslimiinta ah aan u soo jeedinayo. talabaadina waxaa weeyaan maadaama aynu ku jirno bil cibaado, qofku walibana uu doonayo inuu ilaahay subxaana watacaala makfiro ka helo iyo inuu naarta ka xoreeyo, waxa fiican inaynu iska ilaalino waxyaalaha ajarka inaga nusqaaminaya ama inaga burinaya. waxaa jirtaa in wakhtiga tahajudka markaaynu tukanayno aynu maaragtay jamaaco ku tukanno oo masaajidka isugu nimaadno. waa arin mashruuca oo sunno ah in aynu jamac ku tukanno qiyaamu ramadaanka ama taraawiixda. waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wassalaam. wakhtigii nebiga calayhi salaatu wassalaam may jirinin mikrofoonada iyo samaacadaha codka dheer ee gaadhsiinaya dadka qirada. waana nicmo ilaahayna siiye subxaana watacaala, laakiin taa macnaheedu ma aha inaynu u isticmaalo si kasta. waxaa waajib ku ah in dadka imaamyada ah ay ilaaliyaan dadka tukanaya oo salaadaha lagu adimo maaragtay lagu adimo mikrofoonada si ay dadka u gaadhaan wakhtiga salaadu inay gashay. laakiin marka la qiimayo amase taraawiixda la tukanayo ama la tukanayo tahajudka, waxa fiican in la isticmaalo samaacadaha iyo mikrofoonada gudaha oo la iska daayo mikrofoonada amase samaacadaha dibadda u baxaya ee laga yaabo laba masjidoo isku dhow inay qiradii isku khaldanto oo tashwiish uu ka yimaado, ama dadkii xanuunsanayay in lagu dhibo samaacaddaas xoogga badan leh ee qofkii aanu ka seexan karaynin amase uu ku dhibtoonayo. ta noocaasa dad badan waxaa laga yaabaa inay u qaataan in samaacadda xoog loo dallacaa in ajar dheeraada laga helayo, laakiin ajar dheeraada laga heli maayo. bal waxaa suurowda mararka qaarkood qofku inuu kuba dambaabo haddii uu ku tashwiish gelinayo dadkii tukanayay ee masaajidka kale ku tukanayay ama dadkii bukay ee xaafadda jiifay ama kuwii doonaya inay seexdaan oo iyagu cibaadaadkoodii dhammaystay inay samaacadaha la dallacay ay dhibaan. marka waxaan ku wargelinaynaa dhammaan imaamyada masaajidada in ay bakhtiyaan samaacadaha dibadda marka ay habeenkii tahajudka u kacayaan, oo ay isticmaalaan kuwa gudaha oo dadkii cibaadada u yimina ay maqashiin karayaan qiradii. dadkii deriska la ahaana aanay ku dhibaynin. taas baa waajib ku ah, waana in amarkaas la fuliyaa oo loona hoggaansamaa
ciddii amarkaa fuli weydana waxaanu u sheegaynaa in waxa weeyaan arrinta noocaas ah wasaaraddu ay la xisaabtami doonto. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala in uu bishaa barakaysan ilaahay inagu daro kuwa naarta uu ka xoreeyo, dembi dhaafna inagu siiyo, xirkana madar khayr qaba ilaahay inaga siiyo, abaarta inaga soo jebiyo. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.